صح marka abwaanka qof ay saaxiibiin amala qisada ku dhacday kadibna waa qoray shucuurtiisa ka caday kadibna wixii uu qoray marka adoo ku dhiibay sax qisadaas waxay ku dhacday yar saaxiibkeeda oo saaxiibanan sax marka wuxuu dhahay qaasino iyo heestaas imaamadiisu qad dhabe waa heestan heesto qisada dhabe okay Soomaali weynay waxa ogtiin qof walba markuu mataqaana YouTube soo gala soo ku soo gala mugtay maadaama aanu nahay walaalo maadaama aanu nahay dad mataqaana YouTuber ah ya in badan waxaan jecelnahay fan page inay noqoto dhamaan social media mid ugu sareyso horta inay noqoto waxaan gaarsiin karaa idinkaan marka waxaan leenahay hoos halkaas bay السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ولا لهنا خارجة كسود وهذا ولا لا فان بيج ميديا برودكشن ما أنتي كلب عصب وحايلك جوجو أمرتي إنوغا الفنان مجاجليستي كينج أوف كوميدي سعيبكي خارجة آد وجعلها مستر قاسين كينان أو نقص بيري ولا لا فان بيج ميديا برودكشن وحن لنا ولا لسر سودو وماشي لقامله ماشي هذا هو mar hadaaba ka tirsantahay walaalaha fan page media production waxaan ku leenahay soo dhawow sidoo kale asxaabteena qaaliga waxaan leenahay sida aad noo soo dhaweysteen u soo dhaweeyay walaalkeena fanaankeena king of comedy master Qasim Kaynan alfanaan Qasim Kaynan soo dhawaan ku leenahay brad dhawa walaalkeen mustafa halkani waa fan page waxa joogo nin weyn nin aad loo jecel yahay oo mataqaana bulshooyinka Soomaaliyeed aad u xiiseeyaan oo mataqaana fanka ku cusub daayar oo jecel inuu fanka heer sare ka gaaro brotherkayga hadaan nahay fan page media production oo soo dhaweynayna mustafa waa ku dhawaa walaalkii qaaliga fan page media production waa ku dhawaa walaalkii qaaliga okay brother sida ogtahay bulshooyinka Soomaaliyeed hadaan nahay walaalaha fan page waxay naga rabaan ama naga codsanayaan maalin ku xigta inaan u soo saarno clip aad u ajaab macnaha geliya ayaga marka maanta waxaan soo dhaweynay الفنان مجاجليستي كينج اوف كوميدي قاسم كينان الفنان قاسم كينان براذر ولا لازم حدو هيسا ولا waxa wada wax badan ay jecelyiin in loo soo saaro madaalis badan insha Allah wax badan way soo dhawiin madaalis badan waa soo wadna insha Allah okay marka fanaankeena horta marka hore wuxuu dhahay sida aad maqleyseen uu ka dhawaajiyay wuxuu dhahay waxyaabo badan oo idin haya sidoo kale waxaad ugu bogan doontaan hadaad nala socotaan fan page media production waxaad ugu bogan doontaan fanaanka wax kasta wuxuu soo saaro ay kamid yihiin majaajirada mataqaana waxa ku jiro heeso cusub oo mardhow soo socdaan kuwa qaar hadda soo baxeen marka waxaan jeclahay fanaanka inaan weydiiyo su'aalo dhowr ah okay brother sida ogtahay ba dhamaan fanaaniinta Soomaaliyeed waxay sameeyaan markay fanka soo galaan qofba si uu ku soo galaa dadka qaar fanaaniinta qaar waxay ku soo galaan heesii hore ku soo galaan fanaaniinta qaar waxay sameeyaan heeso cusub oo ayaga sameystaan ay ku soo galaan kuwa rappers ay ku soo galaan kuwa waxa qofba si uu soo galaa maadaama ay tahay fanaan daayar macnaha qaab noocay ku soo gashay sida ay wad ogyihiin dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed waxa sameysaa ama aad soo saartaa heesooyin cusub marka heestaadii ugu horeysa aad ku soo anbaxday mataqaana yaa ku sameeyay heertii yaa sameeyay miraheeda laxankeeda muusikadeeda yaa saaray bulshooyintaada la wadaag walaalahaada la wadaag heestu waxaa sameeyay horta heestu waa hees qeyro weyn leh heestu waxaa iska leh abwaan mahad yare mahad Cabdiraxmaan Saalax iska leh muusikada oo ka shaqeeya fan page media production laxanka waxaa iska leh Bashir Hilaac wow wallahi waa heestan sida ila tahay waxaa la xameeyay nin weyn oo mataqaana bulshooyinka Soomaaliyeed magac ku leh cameraman editing wax walbo mataqaana waa u dhameestiray ninkaas horta ani Bashir Hilaac aadan halkan ugu salaama waxaan leeyahay brotherkayga meeshaas ka sii wad dadaalkaada waxaan ku leeyahay garabkaada nahay adaan nahay dhalinyarada reer Hiiraan dhamaantood waxa waa imaamadooda imaamada fanaankeena kulli adaa kugu soo turna Bashir Hilaac meesha ka sii wad sidaas sheegtay waxa sameeyay abwaan mahad yare laxanka waxa saaray Bashir Maxamed Hilaac musicianka waxa tumay fariisa macaan mahad Cabdiraxmaan Saalax oo ku magac dheer mahaday ma markii kugu horeysay miya aad soo gasho fanka ama waxa ku soo gashay riwaayadooyin qaar mataqaana qaab noocay ku soo gashay horta fanka bulshooyintaada la wadaag markii ugu horeysay waa fanka heesta ku soo galo waa صح
marka ma heestaana kugu horeysa mise hees kala hore u qaaday ama ruwaayado kala sameysay ama heestaana kugu horeysa oo aad leedahay bulshooyinteeda aan jecelahay Soomaalida dhamaantood waxaan ugu talgalay hees kala ilaab oo mataqaana qeyro leh oo mataqaana erayadeeda hada aragtaan ama aad dhageysataan aad la yaabi doontaan marka fanaankana sidaad u jeedaan waa fanaan daayar wuxuuna jecel yahay inuu heerka sii gaaro fankiisa oo hore u sii wado heesto waa sidaad sheegtay waa hees qeyro leh sax heesto hees waxay ku saabsan tahay erey jecel maadaama aad tahay fanaan Soomaaliyeed waxaan ku weydiinayaa dhabe waa heestan hees oo qiso dhabe dadweynaha aan u sheego waa qiso dhab ah waxaana sameeyay abwaan mahad yare waxaana uu sameeyay fanaankan wiil ay saaxiib yihiin sidoo uu fanaanku noo sheegay Qaasim Keenan qisadaas waxay ku dhacday saaxiibkii sax u dhahay saaxiib qoftaas way jeceshahay sax marka jecelku ku sheegto amal maxaa qoftaas in fiirs in daryeesh amal sax ayada dumarka dham ayada uu go'aaman sax ayada bas ka fiirsada sax marka saaxiibkii wallahi markuu ii sheegay waa isku naxay wallahi saaxiibo marka sida uu fanaanka noo sheegay waxa heesta waa hees jacayl ah waxa waa gabar uu jecel yahay oo mataqaana uu qaaday ama mataqaana qof saaxiibkiisa ku soo dhacday sida uu noo sheegay marka heesta waa sidaan dareemayo waa gabar mataqaana la jeclaaday jecelka ayada la jeclaadin ay mataqaana si kale ama ay u diidisa saas yaa maxaa waay dumarka dham ayuu ka doortay macnaha waa dooriyay macnaha doorka waa doortay mogtahay laakiin danayn macnaha danayn ma danayso waxaan sugnaa waa heestii horta intuusan heesta ayadoo muusikadeeda macnaha bilaaban waxaan rabnaa inuu mataqaana dhagaheena maqashiyo erayadeeda macnaha oo bulshooyinka Soomaaliyeed uu la wadaago qaalidan jeclaayay markii aan ku eegama qalbiga ku hanado naftanka harayne hooyadii ku korisa hab dhaqankeed leedahay dumarkaba dhammaantood aadaan kala soo baxay dhabe waa heestan hees oo qiso dhabe qaalidan jeclaayay markii aan ku eega qalbiga ku hanado naftanka harayne qaalidan jeclaayay markii aan ku eega qalbiga ku hanado naftanka harayne hooyadii ku korisa hab dhaqankeed leedahay dumarkaba dhammaantood aadaan kala soo baxay hooyadii ku korisa hab dhaqankeed leedahay dumarkaba dhammaantood aadaan kala soo qalanjadan jeclaayay qalbiga ku taala meeshii aad ku dhalatiyo hiranka dhaxgooba qalanjadan jeclaayay qalbiga ku taala meeshii aad ku dhalatiyo hiranka dhaxgooba qalilul darata dumarkaba dhammaantood
dabbigiigoyo adan kala soo qalluun barata dumarkaba dhammaantood dabbigiigoyo adan kala soo bacay صح marka abwaanka qof ay saaxiibiyiin camalaha qisada ku dhacday kadibna waa qorayay shucuurtiisa kacday kadibna wixii uu qoray marka aduu ku dhiibay sax qisadaas waxay ku dhacday bir saaxiibkii oo saaxiibanan sax imaamadiisu qad okay Soomaali weynay waxa ogtiin qof walba markuu mataqaana YouTube soo gala soo ku soo gala mugtahay maadaama aanu nahay walaalo maadaama aanu nahay dad mataqaana YouTuber ah ya in badan waxaan jecelnahay fan page inay noqoto dhammaan social media mid ugu sareyso horta inay noqoto waxaan gaarsiin karaa idinkan marka waxaan leenahay hoos halkaas beeyo